boolisku waxa uu sameeyay baaritaan aad u fara badan waxaana lahaa halkan waxa yimaada dad tuugaa kuwaas oo xabaalaha qoday. أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan ka sheekeyn doonaa qisada qayb saddexaan. qaybtii hore waxay noo marisay iyadoo saaxiibkii Cumar la dilay annaga iyo waardiya saaxiibkii Cabdina aan taaganahay goobtii waxaan ka fikirnay waqtigaas sidaan u xalinayn arrintan. waardiyu wuxuu lahaa maxaa u soo saarteen islaantan waa islaan dhib badan anu laakiinse ma aanan garanay islaantan waxay tahay. waardiyihii ayaa wuxuu la hadlay saaxiibkii Cabdi isla waqtigaasna wuxuu ku dhahay maxaan samayn karnaa wax kasta idinka u sababa maxaa yeelay islaantan waa islaan aad u dhib badan. saaxiibkii Cabdi wuxuu dhahay inankani waa uu ku cusubyaa goobtan naga raali noqo waardiye maxaa yeelay isagu ma uusan ogeyn islaanta meesha ku jirta laakiinse imika waxaa loo baahan yahay inaanu xalino arrintan qaabkeen u xalin karnaa islaantan. waardiye wuxuu dhahay islaantan waxaan samaynaynaa subax hore ma kala galayaan aasi doonaa xabeesheeda maxaa yeelay ilaa la aasa maahan haddii kala joogsamayso dhibaataynkayguna aad ayay u fara badan yihiin. waxaan ku dhahnay sideen u aasi karnaa iyagaa oo meel kasta ka buuxo oo meel kasta fadhiya maxaan samayn karnaa. waxau dhahay waardiyihii subaxa hore markaa cay soo baxdo iyagu gudkooga ay ku noqdaan maxaa yeelay uma dulqaadan karaan filaadhaha cadceedda. annagu wakhtigaas waxaan u sheegnay waardiya hadday saa tahay inaannu ka sugi doono ilaa subax inta laga gaarayo waaba haddii uu rabbi halkan nu gaadhsiin nabadgeliye. wuxuu nagu dhahay ninka ilaaliyaha waa si wanaagsan halkaas ayaad fadhiisanaysaa waxaad samaynaysaan shanqadha fara badan ayaad iskalaanaysaan maxaa yeelay nafteena ayaa khatar ku jirta. annaguna waxaan fadhiisanay wakhtigaas sariirta dusheeda waardiyuuna waxuu ilaalinaya albaabka si kediisa waxaan u maqlnay qilo aad u fara badan oo ka baxaysa dibadda annaguna aad ayaan u naxno waan yaabin waxaas dhahna waxaan muxuu yahay. wakhtigaas ninka ilaaliyaha waxa uu caqlay dhanka iyo daaqadda isla markaasna waxuu arkay islaantii waayeelkaayada soo kacay sida dhammaan dadkii reer akhraadka ahaa. ninkii waardiyaha wuxuu dhahay cismaan ayaan siinaynaa maxaa yeelay islaantani joogsan mayso ilaa isagaan ka siino. anigu markaan maqlay hadalkaas aad ayaan u naxay waxaana ku dhahay anigu ma rabo inaan dhigto maxaa yeelay weli waxaan doonaya inaan sii noolaado. laakiinse odaygu waxau lahaa maya adiga ayaan ku siinaynaa si aan islaanta uga badbaadno. saaxiibkii Cabdi ayaa hadla wuxuu dhahay taasi dhici kari mayso waxaan raadinaa xal kale uga badbaadno islaantan aad ku dhibkoodan. Cabdi wuxuu dhahay waxaan shidanaynaa dab maxaa yeelay kaas ayaa xalka kaliya aan ku badbaadi karnaa maxaa yeelay iyagu waxay ka cabsaan baa tiri filaadhaha cadceedda haddii aan dab shidanna iyagu way naga cabsan doonaan sidaasna meeshan ayaa uga bixi doonaa. saaxiibkii Cabdi waxa uu soo qaatay dab isla waqtigaasna waxa uu sugayay inta ay ka soo galayaan guriga. reer akhraadka hal mar waxay soo jabiyeen gurigii isla markaasna saaxiibkii waxa uu daartay dabkii aadka u holcayay. waxa ay bilaabeen reer akhraadka inay dib u socdaan waqtigaas saaxiibkiina dabka ayuu la daba socday. anigu saaxiibkay ayaan isku daba qarinayo maxaa yeelay aad ayaan u cabsanayay. waxaan isweydiinayay talow halkan ma ka badbaadi doontaan maxaa yeelay annagu waxaan u dhaxaynay geeri iyo nolol. isla waqtigaas saaxiibkay dabka ayuu la daba socday aniguna waan daba socday. waxaan si keedisa u maqlan qaylo isla markaasna waxaan aragnay odaygii waardiyaha oo dushiisa lagu soo xoomay. annagu xagga dambe ayaan soo egnay waqtigaas ma aan ahayn kuwa wax u qabta maxaa yeelay taayada ayaa qilqil ku jirtay. waxaan isweydiinay xagga ay ka yimaadeen dadkan aadka u faraha badan laakiinse waxaan ogaanay inay daaqada soo jabiyeen reer akhraadkani. kuwani aad ayay u fara badnaayeen qofka indhaha saarna aad ayuu u cabsanayay maxaa yeelay kuwan dad caadi ma aha waa reer akhraad. ninka waardiyaha waqtigaa waxaa isku dayay inuu isdifaaco laakiinse maxaa yeelay aad ay uga fara badnaayeen. saaxiibkii waxaan ku dhahay halkan ma joogno ilaa inta laga gaaray subaxa waxaan rabnaa inaan iskaga baxno goobtan. saaxiibkina uu dhahay waa saxantahay saaxiib dabkan ayaan qaadanaa isla markaasna waa iskaga yaacnaa meesha. laakiinse waxaan ku dhahay waardiyaha miyaan ka tegnaa mise waan sii kaxaynanaa. waxau dhahay soo ma aragtid dadka ku xooman sideen uga badbaadin karnaa waxaan wadada isla markaasna aan aadna dhanka iyo jaamacadda. wakhtigaas annagu waxaan kuwa ka soo yaaca goobtaas
saaxiibkay waxa uu fuulay derbi ka samaysan looxaan waqtigaas aniguna dhulka ayaan joogay laakiinse saaxiibkay waxa isku dayay inuu badbaadiyo qacanta iyo isoo taagayay waxaan si keesa u aragnay islaantii waayeelkahayd oo daba socota anigu marka arrinta arkay aad ay u naxay waxaan ku dhawaaqayay saaxiib badbaadi maxaa yeelay anigu ma rabo inaan dhinto saaxiib badbaadi halkan iga saar isla markaana ha iga tegin aniga keligay anigu waqtigaas waxaan ahaa mid ka rajo dhigay nolosha gab ahaanteedba maxaa yeelay cabsida ayaa aad igu sii badnayd saaxiibkiina si wanaag wuxuu isku dayay inuu badbaadiyo laakiinse qacanta ayuu qabtay halkaasna waa iga badbaadiyey islaantii waayeelkahaydna qorigii dabka hayuu dusha uga saaray annagu waan soo yaacnay gaadhiga ayaan si degdega u istaarnay waqtigaasna waxaan u yaacanay si aad u xawliya waxaan tagnay dhankaya jaamacadda markaan soo gaarnay jaamacadda anigu waxaan ahaa mid aad u welwelsan maxaa yeelay waxaan ka cabsanayay waxyaabaha dhici doona waxaan isweydiinayay adiga ayaa u sababa inuu dhinto saaxiibka Cumar maxaa yeelay adiga ayaa sababtaada ku soo baxay islaantaas waayeelka waan cabsanayay waana ooyay waqtigaas waliba aad ayaan u ooyay wadnaha ayaa xoogii garaacmay saaxiibkii Cabdi ayaa ila hadlo wuxuu isku dayay inuu dejiyo waxa uu dhahay saaxiib ma waxaad ka fikiraysaa waxyaabihii hore wax tagay tiigsimaan male waxa loo baahan yahay hadda inaan deeno qorshaha ka takhalusnayn dadkaas isla waqtigaas waxaan ku dhahay anigu waxaan sameynaa booliska ayaan la wadaagna arrintan si ay u soo gabagabeeyaan hawshan oo dhan Cabdi waxa uu dhahay ma taasi dhici mayso saaxiib maxaa yeelay inaga ayaan la ogaanaya waxaan sameyn jirnaa haddii aan u sheegno booliska bari ayaan tagi doonaa xabaalaha si aan u soo gabagabayno arrintooda oo dhan anigu waxaan ku dhahay maya saaxiib kuma raaci karo maxaa yeelay cabsida ayaa aad igu badan waxa uu dhahay subax hore haddii aan tagno saaxiib dadkani ma joogaan waqtigaasna waan ka faa'iideysan karnaa fursadaasna isma dhaafin karno saaxiibkii Cabdi arrintii waa iga dhadhiciyay waxaan isu raacnay subaxa inaan tagno xabaalaha isla waqtigii la gaadhay subaxii waxaan soo aadnay dhankaya xabaalaha waxaan nimaadnay xabaalaha waxaana xabaalaha aad loo burburiyay maxaa yeelay dayac fara badan ayaa ka muuqday waxaan aragnay inay dadkii reer akhraadka dhammaan ay ku noqdeen xabaalahoogii isla markaasna waxaan dul nimaadnay godkii ay ku jirtay islaantii waayeelkaad laakiin sanasib daro iyadoo waqtigaas kuma aysan jirin annagu markaan arrintaa aragnay aad ay u naxnay waxaa isweydiinay xaggii ka dhacay islaantaasi maxaa yeelay haddii aysan waqtigan ku jirin iyadoo xabaalaha waxaa laga yaabaa inay waxyaabo fara badan soo wadato qorshaheyguna uu noqdo mid annaga nagu burburinayso waan yaabna waan naxnay isla markaasna Cabdi wuxuu dhahay kaalay aan raadina bal meesha ay joogtee laakiinse waxaan ku dhahay taas naga daa raadin kari mayna maxaa yeelay dhibaato ay inoo horseedaysaa waxa uu dhahay saaxiibkii Cabdi waxaan raadinaa saaxiibkeen Cumar meedkiisa ina mar haddaba isla waqtigaas anagu waan warwarsan maxaa yeelay aad ayaan u cabsanay waxaan raadinay saaxiibkii Cumar meedkiisa isla waqtigaas markaan nimaadna goobta meedka waxaan aragnay wax aad la yaab badan saaxiibkii Cumar aad ayaa loo jarjaray dhiig fara badan waa uu ka socday isla waqtigaas waxaan isweydiinay maxay ku sameeyeen dalwar akhraadkan saaxiibkii Cumar anigu waxaan waqtigaas lahaa saaxiib garaal noqo maxaa yeelay aniga ayaa u soo geeridaada aniga ayaa dhibkaas oo dhan ka dambeeyay maxaa yeelay bilaayo aan faraha la gelin ayaan faraha la galay taasina waa fudeedkayga saaxiibkii Cabdi wuxuu lahaa aynu asna saaxiib maxaa yeelay waxa iman doona halkan dadka soo booqanaya xabaalaha si ayna noo aragna waqtigan ka faa'iideysano fursadayna dhaafin waa soo qaadnay saaxiibkii Cumar meedkiisa isla waqtigaasna waan aasnay anagu waxaan ay kuwa aad u ooyay maxaa yeelay muruga ayaa naga farabatay waxaan ka ruursanay saaxiibkii iyo dhimashadiisa isla waqtigaan aasna waan ka soo yaacnay meesha gaaliga ayaan soo fulnay waxaan sugnay dadka soo siyaarinaya xabaalaha inta ay ka imanayaan dadkii waxay bilaabeen in yimaadeen xabaalihii annaguna dusha ayaan kala soconay isla waqtiga yimaadeen dadkii waxay arkeen xabaalahu aad u burbursan waa ay naxeen waxayna waceen booliska isla waqtigaasna waxay yimaadeen goobta booliska waxa uu sameeyay baaritaan aad u fara badan waxaana lahaa halkan waxay yimaadeen dad tuugaa kuwaas oo xabaalaha qoday waqtigaas saaxiibkii Cabdi waxa uu ka soo degay gaarigii waxaana u tagay dhanka askarta waxa uu weydiiyay halkan waxa ka dhacay askarigina waxa uu ugu jawaabay halkan xalay waxa yimaadey koox tuugaa isla markaana waxay qodeen xabaalaha waxay u haystay dadka la aasay in wax lala aasay isla markaasna imaan la'aantooda ay xabaaluhu dhan soo qodeen saaxiibkii waxa uu weydiiyay oo halkani ma lahan miyaa waardiye waxa uu dhahay askarigii waardiye xitaa waa ay dileen kaasna waa ay ka takhaluseen waqti hore isla waxa uu dhahay askarigii kuwaas waxayaan kuwaan arxan iyo naxariis toon lahayn maxaa yeelay waxay laayeen dadkii meesha ku jiray badankooga saaxiibkii Cabdi waqtigaas waa iska yimaaday goobtii waxaana yimaaday gaariga dhexda aniga ila hadlay waxaan dhahay saaxiib waxaan u baahanay inaan iska tagno goobta si ula siyaha badan anigu waxaan ku dhahay xageen aadaynaa markaas waxaan dhahay waxaan aadaynaa dhanka jaamacadda ka saaxiib meesha anigu waqtigaas waxaan la hadlay saaxiibkii Cabdi waxaan ku dhahay maanta saaxiib ma gali karo xiisada maxaa yeelay aadayaan naxsanahay waxaan ka sii uruursanahay meedka la keeni doono meeshaas saaxiibkii Cabdi waxa uu lahaa saaxiib taas waa iska iloobaysaa maxaa yeelay inagu waxaan dhaqaatir waxaan u baahanahay inaan xiisadeena dhigno sida ugu dhaqsiyaha badan maanta waxaynu qarin doonaa saaxiibkeen Cumar maqnaashiisa maxaa yeelay haddii aan ka habsano waa la tabayaa isla markaasna waa lagu fahmayaa shirkada oo dhan anigu waxaan ku lahaa saaxiibiga maanta gali kari maayo xiisada maxaa yeelay aad ay u naxsanahay saaxiibka Cabdi laakiinse waxa uu yiraahday inaan maanta tagno xiisada maxaa yeelay aad ay muhiim noogu tahay marka aan nimaadno guriga waxaan iska soo boodinay dharkaan xnay isla markaana waxaan soo qaadanay dharkii jaamacadda loogu talagalay waxaan nimaadna goobta ay ka socotay shaqadu
isla waqtigaas markuuna arkay macallinkii aad ayuu u naxay wuxuuna weydiiyey maanta xaggaan ku saabsaanay wuxuuna aad ay u saabsaantay maxaa dhacay saaxiibkii cabdi ayaa la hadla wuxuu dhahay macallin laga raali noqdo maxaa yeelay gaari ayaa naga xumaaday taas ayaa sababtay inaan soo habsana macallin laga raali noqo macallinkii wuxuu dhahay waa si wanaagsan soo dhawaada ardadeydii wuxuu la hadlay cabdi wuxuu dhahay kaale waxaad samaynaysaa qalin ayaa ku samaynaysaa meydka halkan yaalla isla waqtigaas aad ayaan u naxnay maxaa yeelay cabsi fara badan ayaa nahaysay saaxiibkii cabdi wuxuu ahaa mid aad u luudaya waa uuna karaadsanaya arrinta loo diray macallinkii ayaa wuxuu dhahay cabdi maxaa kugu dhacay maanta adigu waxaad ahayd dadka ugu firfircoon ardayda qalliinka marka la eego kaale oo soo dhawo oo qalmeydkan saaxiibkii cabdi wuxuu ahaa waqtigaas mid tallaabo qaaday waxaabad moodaa in la dhahay dhulka ayaa kula dhaqaaqaya waxuu ku dhahay macallin ma samayn karo maanta taas waa ka xumahay maxaa yeelay aad ayaan u daalinaya beryahan macallin maanta iga dhaaf iga wareeji macallin qof kale u dira arrintan laakiinse macallinku waa uu ka diiday arrintaas waxuu ku dhahay kaalay oo qal isla waqtigaas cumar waxa uu soo dhaqaaqay dhanka iyo meydka maradii ayuu ka qaaday aad ayuuna u qayliyey waxaba u arkay islaantii waayeelka ahayd oo meesha ku jirta waxau lahaa tani waa islaantii waayeelka ahayd waa ay soo kacay isla waqtigaasna cabdi ayay qabatay asxaabtada qiimaha badan halkaas ayaan ku joojinayaa maanta qisadeenna qaybta saddexaad waxaan soo gelin doonaa qaybta afraad qisadeenna oo aad xiiso badan taasoo waxyaabo fara badan ku ogaan doonta haddii aad daawashadeeda xiisaynayso muuqaalka leegsaar si uu u sii faahfaah asxaab fara badan u gaadho